dowladda Kenyana waxaan baarlamaanka uu ka codsanaya inay iyadoo fiirinayso sharciyada waddanka iyo kuwa internationalka maritime actka waddankan dastuurka waddankan sharciga u yaala United Nations Convention on Law on the Sea inay si nabadgelya iyo walaalnimo arrinkan ay ku xaliso iyadoo la fariisanayso dowladda federaalka ee Soomaaliya qodobka labaad waxaan nahnay waa inay haddana ay la tashato oo arrinkan la geeyo African Union IGAD in la geeyo East Africa Community shirkadaha in la geeyo tan saddexaadna hata hadday noqoto inay United Nations soo dhexgalaan labada waddan ugu dambayna waxaan nahnay haddii intaa la waayo dowladda Kenya waa inay isticmaasho dastuurkeeda qodobka shanaad qodobka 241 saddexaad iyo 255 dastuurka waddanka Kenya oo ay dhulkeeda iyo baddeeda ay ilaaliso sidoo dastuurka anaga uu qorayo marka maxkamadda ICJ anaka waa waddan xanahay aaminsan the rule of law waan hortegaynaa laakiin maxkamadda sayto ma qabto awood ama ma qabto ciidan ama ma qabto booliis markay go'aan gaarsiiso fuliyo go'aankaas fuliyo go'aanka waxa ka sii fiican inay labada waddan oo walaalaha oo jiiraanka ah oo waqti badanna xiriir fiican ka dhaxeeyay inay ay arrimahooda ku xaliyaan si nabad ah si diblomaasi ah si danta labada waddan ku jirto iyo dadka labada waddan